الله الرحمن الرحيم. عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك. ومدى الصوماليات ملك استوى جوان الإسلام وحليه عيد مبارك. تلمات كسر هذا برنامج كان سويسين أو لما قام بحي أنت هذا نمرن نحل داف عاو حاندين هايا برنامج لما قام بحي غير بنادلو ساس نمينو دنيت كو تلمات وحاند هايا برنامج كلمات وحواي عيبتي كده علي قومية بنادر كنول دلك كندا غير سدحان وحاندين هايا بنادر استيت أو مقدشو فرين أن أدرايو أو علوس أوكي وهذا سعودين بشان أفريل لما تنكاد جولاي إنه قد عي قرح آد وين وحنون بدن أوضد بدن أي قدنتين أو وينا إله وينه نكلا لهاي إنجير يريزو قدومي أما دوقا مقالة مقدشو إله نحرستو أيضا فرا بدن marka waxaan rabaa tacsiidaas inaan kaga faa'iidaysto Soomaalida iyo dadka Banaadir miisaanna saaro siyaasiyiin la Banaadir siyaasiyiin Soomaalida kale xildhibaan Banaadir xildhibaan dad kale oday dhaqameed Banaadir oday dhaqameed dad kale shacab dadkii dib ku dhacay marka waxaan idin codsanaa si fiican u fiiriya barnaamijka magacaan u bixin waa aragteen horta ugu soo dhawaada gudoomiyaha degmada waa beri wixii loo qabtay marka uu dhintay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay damaanad qaaday inay daryeeli doonto carruurtii iyo waliba qoyskii uu ka geeriyooday Allah uu naxariistay gudoomiyihii degmada waa beri oo dhawaan ku geeriyooday qaraxii ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir. Umar Maxamed Soomen ayaa faahfaahinta warkaasi waxa uu inooga soo diray magaalada Muqdisho. xubnahan ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay wehlinayeen xildhibaano kamid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir qaarkood ayaa magaalada Muqdisho waxa ay maanta kaga qayb galeen kulan loogu tacsiyadeynayay gudoomiyihii degmada waa beri ee gobolka Banaadir Mahad Cilmi Cali oo dhawaan isaga iyo xubno mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka ku geeriyooday qarax ka dhacay xarunta maamulka gobolka. golaha wasiirada iyo xildhibaanada goobta ka hadlay ayaa ballan qaaday in madaxda qaranka dalka iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka ay wax ka ogaan doonaan nolosha carruurta iyo qoyskii uu ka tagay gudoomiye Mahad Cilmi Cali. waxaan idin wadnaa tacsi geerin xadin badan bay runtii ahayd dadka xamar jooga inta badan dhibaatooyinka qaraxyada iyo waxaas waa iska wada sugaan laakiin tan waxay ahayd mid ka sii naxdin badan oo maradaadii ku gubatay qof kula fadhiyay oo qaraxyay oo ku dilay marka carruurtii iyo xaasaskii iyo hooyadiina waa soo aragnay tacsi weyn oo tiiraanyada baan wadnaa Mahad waa inaga wada dhintay dhammaan qaranka guud ahaan waa ka dhintay gobolka waa ka dhintay haddana naxdinta iyo xanuunka kale waxay ku dambeyn doonaan familiga iyo ehelka iyo xaaska iyo carruurta waa ka tacsiyeynaa xanuunka waa idin la wadaagnaa waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto jannatul firdawsna Allah geeyo dhacdooyinka waa dhacaan waqtiyadana waa isdaba maraan waxaan aaminsanahay inay xamar ka bixi doonto dhibaatada ay hadda ku jirto musiibada meeshaas ka dhacday ummad asaga la mid ah oo gobolka Banaadir ka shaqeynayay oo shaqo qaran haysay inay meesha ku dhintaan wax qadaran ay ahayd marka dhammaan waxaan isaga tacsiyeynaynaa wixii meeshaas ka dhacay. qaar ka mid ah nabadoonada iyo waxgaradka ka qayb galayay kulankan ayaa dhankooda madaxda dowladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir uga mahad celiyay isxilqaamkooda ku aadan in ay damaanad qaadaan nolosha carruurta iyo reerkii uu ka tagay gudoomiye Mahad Cilmi Cali oo dhawaan ku geeriyooday qaraxii ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir. waan idinkaga mahad celinaa tacsidan ugu timaadeen mid la midana waa idinkaga tacsiyeynaynaa walaalkii idinku tiimka ahaa oo halkaa ku dhintay iyo dhammaan intii dhimatay oo dhan oo iyo eheladoodiiba waa uga tacsiyeynaynaa ballanqaadkana waxaan leenahay qoyskii uu ka baxayna waa u dan qarankana waa u dan qofkii qaranka u dhintay in laga warqabe hal la adkeeyo isagana ballanqaadka ama ka warqabka ilmihiisa iyo faamilka waxaan rabnaa marqaatiyaan ka nahay fulinteedana insha Allah horena
dowladdu ballanqaadyo badan ay sameeyday waa u fuliday haddana waxaan sugaynaa sida aad u ballanqaadeen in ilaahay u fuliyo aadna hawshaa sii wadiin ilaahay subxaanahu wa tacaalaana mahad ha u naxariisto qabrigiisana allah u nuuriyo cumar maxamed soomane universal t v muqdisho waad aragteen wasiiradooda xildhibaanadooda akhyaartooda ciddii laga dhintay ballanqaadkii iyo geesinimada iyo dhiirigelinta iyo sida loo buuxi maya alxamdulilah asagana ilaah u naxariisto haddana ku soo dhawaada guddoomiyaha degmada cabdilcasiis kamid ah haweenka ku dhaqan magaalada London ayaa kulan baroordiiqa waxay ugu sameeyeen magaalada London qaar kamid ah mas'uuliyiintii ku geeriyootay qaraxii dhawaan ka dhacay xarunta gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho Cabdirashiid Maxamed Nuur Cabdirashiid Rashka ayaa warkan ka soo noogu diyaariyay magaalada London kulankan ay iskugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada London gaar ahaan haweenka ayaa ujeedkiisu ahaa mid inta badan lagu duceynayay sidoo kalena lagu xusuusinayay Allah u naxariistay dadkii ku geeriyooday qaraxii dhawaanahan ka dhacay gobolka Banaadir waxaa si gaar ah kulankan diiradda lagu saareeyay oo lagu xusay Allah u naxariistay gudoomiyihii degmada Cabdilcasiis marxuumad Sabaax oo iyadoo kamid ahayd Sabaax daayartii dalka wax ku baratay kadibna go'aansatay inay u istaagto kaalmeynta iyo waliba garab istaagga bulshada Soomaaliyeed ugu dambeyn Sabaax iyo waliba bulshada kale halkaasi ku geeriyoodeen ku baxeen gacan ku xaq daran Sabaax ayaa waxbarashadeeda aasaasiga waxay ku qaadatay magaalada Garowe iyadoona jaamacad u aaday dalka India Sabaax ayaa bisha Abriil ee sanadkan waxaa loo magacaabay gudoomiyaha degmada Cabdilcasiis iyadoona kamid ahayd Allah u naxariistay 24kii bishii la soo dhaafay dadkii ku geeriyooday qaraxii xarunta gobolka Banaadir dadkii kulankaasi ka hadlay oo iskugu jiray abwaaniin iyo waliba qaar kamid ah eheladii dadkii ku geeriyooday qaraxa ayaa u duceeyay ayagoona sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay in cadaaladda sida uu dhaqsaha badan ay horkeento dadkii ka dambeeyay qaraxaasi waxaan si khaas ah ula wadaagaynaa geerida Sabaax hooyadeed walaalaheed ilmaadeerteed walaasheed oo runtii annaga nugu ah gabar lafdhabar noo ah haddaanu nahay gabdhaha reer London oo runtii gabar firfircoon oo annaga maaragtay qaali nugu ah oo garabkayga midig fadhida waxaana ka codsanayaa dawladda Soomaaliya inaysan iloowin dadkaas dadka ay ka tageen inay garab qabtaan inay xusaan walaashan Sabaaxna waxaan leenahay Ilaahay samir iyo iimaan ha naga siiyo dhammaan reer Cabdilaahi Asad Allah samir iyo iimaan ha ka siiyo iyo dhammaanteen Allah u naxariisto samir iyo iimaan Allah ka siiyo gabadhaada ilaahayna wiilka yar ay kaaga tagtay ilaahay bedelkeeda ha kaaga dhigo waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadkan nagala soo wada qayb qaatay tiiraanyada maaragtay geerida naxdinta lahayd ee aanan marna ilaabi doonin ee ku timid walaasheen marka iyadana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa qof waxay ahayd xaafid quraan ah oo maaragtay diinteeda aad u haysatay dadnimana lahayd aad iyo aadna wadankeeda u jeclayd marka hadda taariikhda Sabaax halkan kuma soo koobi karna laakiin waxaanu leenahay ilaahay maaragtay naxariista janno ha siiyo Cabdirashiid Maxamed Nuur Cabdirashki Universal TV London waad aragteen family friends xataa in lagu sheegay gobolkay ka soo jeedo tacliinteeda iyo waxeeda in wixii loo balan qaaday sida loo garab joogsaday hooyadeeda iyo waxeeda ayaan waxaan leeyahay ilaah ku naxariisto walaasheed haddana ku soo dhawaada guddoomiyihii degmada Shingaane إنا لله وإنا إليه راجعون ولا شيء زهرة إله ونحرسته يو أنت لن تبو إفكا وحيكا تقضي شن حرور فرعية فيصل محمد أو أهربات تنجر أو دقته جامعة هرموت إيو محمد أويس شيخ سيدي تونجر أو دقته دوكسية محمور إيو جيجا أويس شيخ لاحي تمنجر أو دقته دوكسية محمور إيو زكريا محمد حسن أو لبي تمنجر
oo dhigdo iskuulka rajab iyo sumeya maxamed xasan 9 jir oo dhigato dugsiga rajab ama iskoolka rajab. marka walaashayda aniga ka beel ahaan oo ka tirsan beelaha degan ama degaan degmada Shingaani waxaan kuu soo dirayaa adiga iyo ummadii meeha ku dhinteen ku soo dhawaaw ducadaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaa inay markay arkaan barnaamijkan inay min hal faataxo ay adiga iyo intii kula dhimatay ku maraan maadaama aan aragnay nin la arka tolkiis iyo dadkiis. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أنزل عليهم من واسع جودك ورحمتك ورضوانك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمن فزعنا يا إلهنا يوم البعث والنشور اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. waad aragteen aniga waxaan u daray ayada iyo dadkii la dhintay qur-aankaas inaan ku saaxido su-aal aabe dadkii reer Shingaani aabe akhyaartii aabe xildhibaanadii aabe wasiirkii aabe qabiilkeedii aabe ceeb mahayno aabe dadkan kale maxayna dheer yihiin aabe mas beenaan isu sheegayna Facebook isku caanina aabe ka bax haddana ku soo dhawaada qowmiyadda banaadir aaliri waxay ka qayb gashay ama qayb ka qaadatay tacsiidii ilaah naxariista injineer yariiso ay ku aadeen wafdi hogaaminayso basma camar jakeeti. odayaasha beelaha banaadiriga ayaa waxay ka tacsiyadeeyeen geeridii ku timid allah u naxariistay gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahna duqi magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow. baasha deeq macalin ayaa warkan ka soo diray muqdisho. beelaha banaadiriga oo ay wehelineysay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir marwo basmo ayaa ka tacsiyaday geeridii ku timid gudoomiyihii gobolka banaadir allah u naxariistay injineer cabdiraxmaan yariisow. xubnahaasi ayaa tegay guriga ugaas maxamuud cali ugaas oo ay taallo gogasha tacsida waxaana ay saxiixeen buugga tacsida. odayaasha beelaha banaadiriga iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir ayaa guriga tacsida geeyey xoolo geel yaar isugu jira iyo sidoo kale raashin waxaana ka gudoomay ehelada marxuum injineer yariisow. waxaa goobta ka hadashay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka banaadir basma axmed caamir jakeyti iyo mid ka mid ah odayaasha beelaha banaadiriga ah. waxaan la socdaa odayaasha dhaqanka ee beelaha banaadiriga oo kasoo tacsiye gudanayay geeridii ku timid allaha u naxariistay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho naxariis janna allaha siiyo. sidaad arkaysaan gudoomiye yariisow wuxuu ahaa naxariista shacabka ku nool caasimadda gobolka banaadir howlkar ah aana aqoonin isla weyni aana aqoonin daacadnimona ku shaqayn jiray ma iloobi doono soomaaliya oo dhan aan iloobi doominin nin qaran ayuu ahaa yariisow injineerka naxariis janna allaha siiyo. waxaan rajaynaa insha allah ummadda ku nool caasimadda gobolka banaadirna inay u duceeyaan gudoomiyihiina gudoomiye yariisow allah u naxariisto. waxaanu la soo qayb galay oon la qaybsanay walaalaheena oo ka dhintay anagana waa naga dhintay haddaan banaadir nahay
waxaan idinku soo wareejinaynaa xoolahan aad aragtiin iyo xoogaagan badarka ah saan ugu qayb qaadano waxaan codsanayaa inaad naga guddoontaan maaragtay allah u naxariisto guddoomiye waxa waaye taariikhdiisa haddaan xusno iyo waxqabadkiisa runtii anaga reer banaadir haddaan nahayna waa mid aad iyo aad aan u iloobi doonin maaragtay wuxuu qabtay masaajidadu ka dhisay macnaha degmada oo maanta tacmiirkii camaraadii uu ku bilaabay ee maanta ku socoto alxamdulilah ilmihii yaryarka iskoolka macnaha maxaa la yidhahdaa oo quraacdooda ballan qaaday oo asaga kafaalo qaaday calaa kulli xaal adinka keliya idinkama dhimanin anagu naga dhintay ugu dambeyntii waxaa madasha tacsida ka hadlay siyaasi cabdulaahi sheekh xasan oo ka mid ahaa ehelada injineer Riiso iyo mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku sugnaa goobta. waa mahadsantihiin waa Riiso Soomaali oo dhan oo ka dhintay iyo intii la dhimatay mas'uuliyiin badan la dhimatay kulligood baa Allah u naxariisto kulligoodna sabar Allah naga siiyo idinkana waa horaba loo sheegay waxa maanta geel keentay waxa waaye waxa muuqata inuu wax ka tan badan inay ku ahayd arrintaani marka meesha ka soo qaadan bedel khayr qabadaan sadaqana Allah idinkaga dhigo barandir geelkana waa kow taariikhda gala marka geel ku macrawa qadida keenta samaarta waa mid buuga galeysay nacmada ilaahay ugu bishaareeyo amiin ma ka keentana bedel khayr amiin soo xusuusateen xiriirku helaan goyn Allah ka dhigo amiin waa xiriir samaysana jariisowna jannada la korabso idina qalbigiina jalcanood waa timideen anada meel badan waa taxmiruuna ka fujiyo ama ka taageero waa ogaay moogta hal bedelkiisii oo dadaalo sidii kale wuxuu qabtan Allah keen idinkana shartaysan dadka xiyab baashi deeq macallin telefishinka Universal Muqdisho ma xumo waad aragtay markii la aaday taxsiidi injineeriso ilaahay naxariistay aabi xildhibaanadeena aabi oodi dhaqameedeena aabi dadkii mas'uulka aheen caruur yar dad aan la garanaynin amaya ka muuqday war gabadheena sharaftaas maxay ku weyse noo sheega bal bas gabadheena caadi le waay hadday dhimato marka reer banaadir waxaa noo soo baxday in anaga meydkeena ama qafkeena oo shaksiga ah oo muwaatinka ah oo ku dhintay aan qiimay weyne aabi xildhibaanadan nya dhahayaan laakiin basma waxaan kuu sheegaa diinta waxay ku leedahay zako markaad dhiibaysid haddaad maal qabtid kow waxaa kuu xaqle kan adag ku xigay ehelkaaga kanaad sheegaysid waa fiican tahay waa dhaqan waa caado maanta waa geesi beridi wax nagu dhaco ayaga waa noo keenayaan ceeb maaha qabiilo dhan waa geeyeen hawiyaa geesi daaroodaa geesi kulli raxweynaa geeyeen tacsiyada waa caadi tii walaashaada adiga aad guddoomiya ka dhigtid aawe tacsiyadeeda kasoo tag waad la socotaa basbo dowladda Soomaali maanta inay mucaarad xoog badan leedahay xoog badan oo wax la arka been laga sheegayo xataa adiga iyo tulax baandiga la sheegay sida la sheegayo ilaah og dad badan waxay dhaheen oo hadda London joogaan oo reer xamar ah alaabtii la geeyey laaluush baa loo geeyey masmeha waxaa la iska sameynaya horu dhac basma waxaan kuu sheegaa adiga waxaa tahay gabar reer xamar ah ha cabsanin reer xamarne ilaahay ay aaminsan yihiin iyo qur-aankooda inaad waxaad sameynaynin waa lagu ogyahay haddaad umudaysidne inaad garab laadahay qof waalid ku ah oo libaax ah kaa dambeeya ma lagu taaban karo ha baqin laakiin fadlan yartaan walaashaada ah oo waalidna kuugu aadan u sameeya baroordiiq tacsiyo ceeb marka waxaa la hadlaa dadka ku nool dibadda guriga waxau dhismaa markoo waalidka habartii adooga isku fiican yihiin caruurta waa soconayaan nin wasiir oo hadda joogay inoo baxay ma ogey waa qabtay iyo wasiir kale waxaan kuli warniyo adiga wasiir haatiine xildhibaanadan maad kala qabataan ma heshiisaan wuxuuni macloo hoosari dhowr mar
aan hotel shamo fariintaas meelay u socotaa aan shir ku qabani qaarkooda salaan ma iska qaadaan haddii loo bahdana codka u ahayaane maxaa loo leedhahaane marka xildhibaanadii hadday saas yihiin in markay dibadda yimaadiin la dhibo ama shir loola galo oo laga hadlo one man one vote in laga hadlo one man one vote dadkeeniyaa tacbaana meydkiyaan duuga weyni meydkiyaan isku tegi weyni waa la socotiin laba meedaa dhacay soonka laba wiil dhalinyaro reer xamara lagu dilay degmada xamar weyni hal xildhibaan masmac camar shakeeti iyo guddoomiya xil laga qaaday cumar shariif jeeg iyo hal ninka gobolka socday xildhibaanadii kale xamar weyni aabe yani waxay noo caddeynaysaa xildhibaan kasta oo reer banaadir inuu u fadhiyo qabiilkiis aabe xildhibaanadii kale maxay tacsi u dhigi waayeen maxay u cambeera waayeen cambaareysna maxay u samey waayeen marka ceeb waaye inaan been isu sheegno markaan dibadda nimaad in nala fadhiisiyo haddana waxaa ceeb ah war meedaa noo yaalaa aan ka hadloonaa one man one vote kaas reer banaadir iska ilooba sida aada u gadateen xildhibaanada reer banaadir ay u gateen marka baraaba marka qoryooley afgooye shalambood maxaa lahaa jaziira kulli banaadir aa lahayd maanta waa la qaatay xoogna ma lagu qaadanin caqli iyo kalaa lagu qaatay qalin iyo laaluush yar koonfur qabeed ma ciidan soo qaadatay mayama soo fadhiisanin akhyaar ma la wicin anagaa raali ka ahayn laakiin waxaan naqaanaa dowladda inaan eegno 4.5ka 5 markaan soo qaadeen anagaa raali ka ahayn waxaan eedoonaa waana la xasdi waana la yiri no markii la keenay maxaa u diidi weyse ceeb waxaa kaloo ceeb ah dolaad waxaa dhacday shir reer banaadir aan loo dhameen ilaa hadda waxaan la'nahay war markii la shilaayo khabiil kastoo joogo hal qabood laga soo waco khabiil 5 khabiil 7 khabiil 2 khabiil 4 oo group oo la yaqaan ah diin leeya cadale waa dhamaatay dadkeena dhibaataysan waxaan ka hadloonaa xisbi aan samaysano kan aan yeelno horta gurigaaga dhiso dadkaaga hanti dhibka ka bixi xamartii hore ma aha xamartii hore ma aha ustaad axmed aaji xoori xamar waa lagu xumeeyey yaa ku xaal marinaa weli xaalkiaan sugoona anaga laakiin waa jiifna anagaa isku baqannahay ko taas mayaan ogu baxay waxaa rabaa dadka reer banaadir oo facebookyada ku jiraan iyo qolalka inay arrintan baaraan intay iscaal lahayeen waa ku tuuri iyo waa ku yaali iyo waxay dhihi lahayeen taasna mayaan ugu baxay tan kale waxaan rabaa fariin inaan u diro oo markhaati ah fariin markhaati oo wadato digniin kow doctor shariif cabaas 2 doctor saalax idruus 3 doctor maxamed abuukar markhaati ahna inaan ugu dhigo waalidkeena maanta ugu weyn yurub doctor cabdulqaadir cali boolaay maadaama ou nin weyn yahay isagane inuu markhaati ka ahaado waxaan maqlay inay been tahay inay run tahay ilaah og in buug la soo wado la rabo lagu qanciyo gibil madow oo buugii hore looga caayay in kan lagu qanciyo oo ka sheekeynayo taariikhda waxaa jirtaa 2004 2003 ma ogi berigii xiisada noocaasi banaadirnimada in aan u dhiibay shariif cabaas taariikh qoran oo ka hadlayo marxuum aabaheyga maxloo nuur fankiisa wixiis hadduu buugaas ka hadlayo taariikhda dhaqanka banaadiriga waxaan ka codsanaa shariif cabaas buugaas inuu adoogeyga ka bixiyo ma rabo aniga magaca adoogeyga khabiir la raali gelinayo in buuggiisa magaciisa ama taariikhdiisa lagu soo daro walaa aniga
hadduu buuggaas soo baxo oo taariikhdaas ku soo baxo oo waxaas ku qornaado hadhow wixii dhaco macluuma lagu qaban kara miyaa macluuma lagu yeeli kara miyaa aniga yaan leedheen waa iga digniin marka shalay maantan qalad aan galay dadkiina waa raaligeliyey white housekaan geeyey buug heer xamarka la qiiminayo ma ogeyn aniga ma ogeyn inta soomaali kulli waa akriyi afka soomaaliga ma qorno af ingiriisiga ku qoran 525 miya iyo 550 miya maya cayda markaan imid alay tusi marka aniga ma rabo sumcadda adoogayga iyo sumcaddeyda iyo sumcadda reer maxloo aan ku leenahay adduunka inaan soo dhex muuqano meel fidna laga abuuraayo ama fidna lagu raali gelinaayo taas waa iga digniin taasna meehan ugu baxay tan labaad waxaan ka hadlaynaa arrintii foosha xumeed oo ka dhacday dalka canada qowmiyadda banaadir horta waxaa nasiib dara ah ummadda soomaaliyeed dhan waxay noo haysataa inaan anaga aan nahay qowmiyadda keliya oo mutacalimiin ah ahludiin ah aan dhiig gelin aan wax gelin laakiin manoo haysato inaan nahay dabshidayaal ceeb nagu filan markay dhacday doorashadii guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka 2 nin mutacalimiin oo reer banaadir aan ku tartameen ceebtaan ka qaadnina waa la arkay haddana nasiib daro waxaa dhacday canada filigana waa haya aniga in lay soo diray 2 guddoomiye in lagu dhawaaqay hebel hebel guddoomiye banaadir canada hebel hebel guddoomiye banaadir canada ceeb aan is-asha weli 2 walaalo ah 2 saaxib ah laakiin waxaan u mahad celinayaa walaashayda inaa xaaji aago iyo odayaashii galeen iyo odayaashii canada iga soo waceen iyo odayaashii xamar iga soo waceen iyo odayaashii ingiriiska iga soo waceen kow walaalkayga maxamed cali waxaan kuu sheegaa hal shay dhibkaan marka u dhacay anaa ku soo wacay waxaan ku yidhi masibirkaan soo ku soo geli karaa qowmiyadda qadiyadda banaadir yaana soo geliyey soo ceeb ma ah waataad dhihi jirti dadkaan anay waa dhihi jirti wuxuu ri maxluu raalli ahaw ninkii waa laga saaray kelmadaan kuugu yiri aniga maxamed cali sheekdaas waxaa la dhahaa beeni waa run 6 sacaan kuu qabti ninka haddii lagu soo naqo maxaad qabanaysaa aan ku eri waad hadashay ma sheegay waa lagu soo naqay waa ku soo wacay haye waxaan kuu sheegay maaragtaa ku dhahay markay qaladka koow dhacay waxay ahayd arrintaada markii oo dhacay arrintan canada waxaa loo baahnay inaad isticmaashid odayaasha reer banaadir alifley xunxun baad isticmaashi alifley iyo odayaal iskumaan alifley iyo odayaalne ma laisku keeno alifley shaqadooda whatsapp waay alifleyda odayaalkane waad ogtahay soomaalida waxay tiraa umaliso iyo oday ama odayaasha say wax u ogyihiin wax ma u sheegaan ninkiina waa lagu soo celiyey nasiib daro ninkaan qabadan waa ogyahay wuxuu facebook u soo geliyey arrinta maxaa jumcada loo geeyey hees maa la saaraa laxan maa la saaraa haddaa lagu sheegaa heeska la saaraayo iyo laxanka la saaraayo iyo ninkii yidhi dhufeyska laga soo baxo fuli arrinta canada walaalaha canada joogo iyo walaasheeda waxaan faraa aniga macluu ahaa waxaan ku dhameeyey london baa ogtahay 100 guddoomiyaa qabnaa bb banaadir ceerta banaadir dhalinyarada banaadir odayaasha banaadir marka sidaas darteed waxaa idinka codsanayaa ninkii hore ama ninka maanta labadooda kala qeybiya nina guddoomiya banaadir ha qaato nina guddoomiya dhalinyarada banaadir ha qaato hal gabar kalena noo keena u bixiya guddoomiyaha hooyooyinka banaadir si nin arko oo jagadiisa u haasto sana kastane ku xisaabtama marka meel say u taal ay u taalaan taasne mehaasaan kaga baxay waxaa kuu soo hortay
banaadir state horta aad iyo aad ugu faraxsannahay dadka banaadir state wadaan waan garab taaganahay maxluu ahaan laakiin waxaan idiin sheegaa walaalayaaloo arrinaa jirta oo adinka aadan ogeyn oo laakiin og odayaasha khaasatan mudulood xamar iyo xamar daya haddaan idin sheegaa horta buuggaan mujaadiin buuggaa waxaa qoray sharif ciidulus oo maxafarka ku duwan yahay waa taariikhda xamar qabiilada siay u kala degaan iyo sida calaaqaadku u dhexeeyey marka shingaani waxaa ku nool 7 qabiil si fiican ii maqla waxaa jira waxa la dhaho heer xamar waxay u kala baxaan 2 heer xamar buuggan waa ku qoran yahay 2 u kala baxaan 2daasoo ah 5 shingaani iyo 4 xamar weyne walaalaheena 4 xamar weyne xaqooda way caddaysteen wayna qaateen raganimo waa loo baahan yahay waxaa markhaati ka ah kasoo bilaaba dowladdii cabdiqaasim ilaa farmaajo 4 qabiil xamar weyne ugu weyn waa 4 xildhibaan ay wataan ilaa hadda waana ugu hambalyanaya ninka ragga markuu wixii soo dhacsanayo waana tiraha waad mahadsan tahay marka dadkaan reer shingaani waa dad masaakiin cidna ma u maqno ceelna ma u qodno ko waxaa jira heshiis dhexmaray 1930 imaamka magaciisa idin sheegaa imaan maxamed maxamuud indabuur yacquub harti abgaal ko iyo 5 shingaani ilaa hadda tacsiya haddii dhacdo qaaraanka waa wada dhiibnaa haddii gabar la doonaayo waa wada doonnaa iyadoo dhibaato iyo waxaan jirin 5teena wixii shingaani ku noolne rayaalna isu nahay wax dhibaata qabiilada kale ay ka qabaan ama aan ka qabna male ko kadibna xilka waxaa la wareegi ilaahay u naxariistee maxamed abuukar ducaale awowgiis oo la dhihi jiray marxuum islaaw cumar cali maxaad cabdiraxmaan yacquub harti abgaal iyo baaba islaaw mahadalle maxamed nuur yacquub harti abgaal imaam maxamed maxamuud wuxuu degnaa jiri ilaah u naxariistee guriga aan deganahay degmada shingaani jaamacada ku dhegan sarta gadaashiisa sar baarey aa la dhihi jiray baarey marka beelaha habiyo iyo odayaasha mudulood ama beesha mudulood waxaan ka codsanaa aan u sheegaa waad la socotiin dhibka shingaani ku dhacay inuu cid ku dhacay aan lahayn oona sabab u lahay labadooda subaxna caydiidana xakumaayey subaxna calimaadi caba caydiid galab calimaadi shingaani horay iyo gadaala loo maray waa haddii la rabo in la iscafiyo wax kastoo col nabadaa ka dambaysa annaga diyaaraa u nahay laakiin waxaan ka codsanaynaa beelaha habiyo 4 meel aan u tilmaama aniga aan diyaar u nahay inaan fadhiisano annagoo ah degmada shingaani oo degan 17 qabiil hadday shingaani naqanayso waxaa hogaaminaya beelaha shingaani ashraaf ahlulbeyt waxaan diyaariyey qasab maaha waa aragti 4 meelaan sheegaa hadday shingaani tahay
jaamacada shingaani haddii la waayo masaajidka sheekh axmed labo haddii labadaas isu afgara waaye maxfalka sharaf ciidruus oo ku yaal shibis haddii laisu afgara waaye mawlaca macalin nuur annaga shingaani haddaan nahay waa dhiban nahay xildhibaan ma qabno wasiirna ma qabno waxna masalena ma qabno haddaa idin sheegaya anaga waxaa rabno dhibkii nagu dhacay waad ujeediin way duduusan tahay xaafadda waxaad ka qaban kartiin ama beesha caalanka dowladda adinkaa ah adinkaa u dhow adinkaa u xildhibaan badan ama beesha caalanka ama jaamacadda carabta ama unesco mehartiin gala shingaani ha lagu dhiso caawinaad iyo isxilqaan oo dowladda maanta keentay isxilqaan ha lagu bilaabo oo ah ay dhisayaan wasaaradihii dowladda lahayd iyo inay noo dhisaan iskoolaad iyo meel umbritori caafimaad marka oo bilaabdo dadka shingaani way soo naqanayaan dadka shingaani waxay ku maqan yihiin coqdi nin saas u hadlo ama dowladda ula hadlo ma haystaan xildhibaan ma qabaan yaan been lisu sheegin mudane ra-iisul wasaare mudane farmaajo annaga shingaani haddaan nahay dhibkaas ana haysataa haddaad wax noola qabanaysid annagana intii tabarteena oo yurub ku nool oo reer shingaani ah diyaar waxaan u nahay inaan degmadii aan camirno aan wada shaqeyno aadna waxaan ugu mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha khayre oo shalay maantaan jadwalkiisa aan ku jirin garoomo fara badan iyo xafiisya fara badan ayuu maalgelin ku sameeyey iyo dhiirigelin oo la dhisay waa ku mahadsan yahay anagana waxaan kaa codsanaa mudan ra-iisul wasaare wiilkaaga maxamed awar ducaale amniga dowladda ku ah xaafadiisa oo ahay adiga iyo wasiirka amniga qaranka iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo wax kasto inaad garab nagu siisaan ama barnaamijka isxilqaan aad hil nagu siisid iyo waxaan jecelnahay heshiiska marka u dhacaayo dowladda inay goobjoog ka ahaato hadday rabaan degmooyinkan jiiraankeena ah sida cabdicasiis sida boondheere sida xamar weeli sida xamar jajab sida meel kasto way imaan karaan akhyaar ahaan way kasoo qeyb gali karaan laakiin heshiiskaas dhibkaas anaga nagu dhacay waxaan la hadlaa beesha mudulood haddii warkaan aad u mudaysiin been waxaad warsan kartiin beesha mudulood oo london joogaan sana ku dhawaad ayaa shir labaday beel ka mid ah beelasha xamar weeli markii faataxda la soo gaari ee waxay doonay ka sameeyeen si loogula tagay ilaa hadda waa lagula maqan yahay anaga maanta xaqeena anagaa usoo taagan haddii inkaan rabtiinne adinka idin taalaa duco iyo maslaxa haddaa rabtiinne waa idin taalaa arrintaanne waxaan u xil saarayaa anigoo macluu ah oo beesha mudulood nooga wakiil ah shirka laisku imaanayo noo dhexeenayo yacquub imaamka yacquub oo hadda joogo oo curudka ah anaga qadki iyo warqadii baaba islaam cumar cali baaba islaam mahadale baaba imaam maxamuud kulli waa haynaa calaaqaadkii iyo ceeshkii naga dhexeeyey ilaa hadda waa naga dhexeeya ducaale waxaan kaa codsanaa gurigii baaba islaam cumar cali oo saalixiida lagu qaba jiri hala dhiso taariikhdii hala soo nooleeyo shingaani hala soo nooleeyo warkaygane meaan ugu baxay ninkii wax ka qabane teleefonkeyga 07984551964 oo reer banaadir eh soomaali eh wuxuu raba aado waa ka qarxinaa waa imaa karaa face to face soomaaliya maanta waxay maroosaa yaa taqaan iyo maxaa taqaan oo laisku qabay waxay soo saartay yaa taqaan iyo maxaa taqaan markii laisku qabay waxaa soo baxay barnaamijka ilaahay isxilqaan barnaamijka ilaahay isxilqaanaa soo baxay horena waxaa jiri iskaa wax u qabso
iskaa qabso waxay dhashay isaga qaan anagana waxaan ka codsanaynaa beelasha hawiyo iyo mudulood iyo dowladda shingaani waa dhibaateysan tahay xildhibaanna manoo maqno wasiirna manoo maqno mana qabno mana u baahani degmadeena hanoola dhiso dad waxaan nahay nabadda jecel warkan meehan kusoo gabagabeeyey sidaas iyo nabadgelyo